السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشيك ولا الآد يا دي جن حسي وشيك أدي ما كان نحي دونته وشيك أوباهني نسكو براروتشينه. شيك هذا نحن كأخي فيسبوك وحين لا هي تعرفت فتاة على شاب أجنبي عن طريق الفيسبوك قبل أن يرى أحبان وحي كبرت فيسبوك. في البداية كان إعجابا ثم أصبح حبا. sheekadu bilowgii waxay ku bilaabmatay ka helitaan kadibna waxay isu bedeshay jacayl la isu muujiyo wa abda shaabu istidaadahu lidukhuul islaam wa zawaaji biha ninkii dhalinyarada ahaa gabadhii waxa uu ku yiri waxaan diyaar u ahay in aan diinta islaamka soo galo kuna guursado wuxuu u diray oo arsala laha 10000 dirham wuxuu u diray 10000 oo dirham oo lacagta Marooka ah taqriiban waa lacag u dhigmata $150 وقال لها اعملي تحليل الدم والقلب والكبد وحاسم يساوي كيري فحوصات كسو سميه ديغاغا iyo wadnahaaga iyo beerkaaga قالت الفتاة تحاليل الدم كافية waxay ku tiri waxa ay ugu filan kaliyaata dhiig in iska baarno maadaama iskuulsanayno markii iskuulsanayaan dhiig waa laga baaraa si qofka waxa weeye xanuunada faafa iyo cuduradaas looga baaro loo ogaado xaaladiisa markaas wuxuu ku yiraahdaa waxaa samaysaa ana uhibbu an na'mala jamii'a at-tahalil wa nartah waxaan jeclahay in dhammaan aynu iswada baadhno oo waxa way qofka kale soo hadhowto uu kalsoonaado oo qofna uusan qof kale u caan hadhowto hadda aynu iswada baadhno gabadhii way rumaysatay faqaamat bima amaraha waxay samaysay wixii uu ka dalbaday wa arsalat lahu kull at-tahalil waxay u dirtay dhammaan waxa way jawaabtii soo baxday oo dhan ay u dirtay gabadh caafimaad qabta oo dhalinyaro 500 عجيب بدانا فأرسل لها مرة أخرى مرة بوحو ديري 300,000 درهم لعاق دان صدح بقول أو كون أو درهم ولعاقت مروكا يعني ودك المغرب ولعاق دان ثالي تقريبا صدن يشان كون أو دولار لكي تضمئن سي كودا وحو ديري لعاقتاس سي وحوي أيو كالسوناتو تلانين ما شاء الله ديقسي ودلين يراه أياكو قرسانية مركا وحوي كالسوني سي أسيسو وهذا مرة ولعاقتها وديري وقال لها وحو نكويري سوف أحضر للمغرب عندك وتسافرن معي ليومين وحوي وحاني من يودنك المغرب لما الموت بين السفر وإسراعنا سفرنا بكير وبالفعل حصل كل ما قاله لها كبدي وحوي وحي وننكني كيري ويرميستي وقراتي لابدي مع الموت بي الديار قرودي ولا إسراعي كدبنا مركي يودي نكي إسراعين لكن البنت بعد السفر اختفت وقامت عائلتها بإبلاغ الشرطة قبل مركي لواي أي وحوي قبل ريركودي وحي لها اللي بوريسك وحي نقول شيئين إني لأيهين قبل نوعاس. وبعد 3 أيام صدح مع الموت كذب اتصلت الشرطة على العائلة وحوي بوريسك وحي وعين فيركي قبل الدلي وأخبروهم أنهم وجدوا الفتاة waxayna u sheegeen inay gabadhii heleen ay u sheegeen laakiin waxay dhahaan waxaanu helnay wajadu al-jilb faqat mujarradatan min jamii'i a'daa'iha waxay dhahaan waxaanu helnay gabadha harageedii bis baan helnay oo dhammaan xubnihii lagala baxay الرجل الذي كانت معه من منظمة دولية لبيع الأعضاء نين كان وحوها نين كترسان وحوي والرضا توجد وحوي حبنها بن آدم كإبسده والفحوصات والتحاليل التي كانت ترسلها له ما هي إلا معلومات كانت تهمهم عن الضحية لمعرفة كل شيء عن أعضائها وفصيلة دمها ليكتمل ملفها حتى يأتي ويأخذ كل أعضائها فحوصات كي يباركان كي ممكن يقولون أدرسي waxay ahayd kaliyaata macluumaad ay doonayaan inay qofka kan ay ka ogaadaan xubnihiisa iyo dhiigiisa noociisa iyo waxa weeye macluumaadka u dhameystiran ay u yimaadaan waxa weeye marka ay xubnaha intay uga baxaan u qaataan xaqiiqatan waa sheeko muruga leh waa sheeko halisteeda leh waa sheeko waxa weeye u baahan in lagu baraarugo berigii hore carruuraha meelahaas laga dafi jiray laakiin hadda waxa weeye lacag baa la isticmaalaya dadka lacagta leh ee waxa weeye ku maaragtay yani dadka bini aadamka iibsada xubnahooda iibsada ee hadhowto dadka ka sii iibinaya lacagta badan ka taajiraya ayaa waxaa sameynaya
marka dhalinyaroy arrintaa lagu baraarugo ilaahay waxaan ka baryaynaa khayrkiina waafajiyo waad mahadsantihiin salaamu alayhi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh